شريف أحمد عبد الله هاي نك هو هاي لقول لك هي ولاية ما عليك عندي بسوا من دي من هاي حقيقة هاي لو هاد ما يركز معاهم دي كلام بلا شو مهلي هاي وقاعدتي سيدا هاي dadka qaar waxay leeyihiin gabadhaasi waxa dhiibay aabaheed waxa meeriyay aabaheed arintaasi waa beeninaysaa waxa leedahay gabarteeda mana la xididin qof kale ma xididin mana dhiibin sidaas miyaa leedahay dowladda Soomaaliya waxay sheegtay inay aroos qaran u dhigayso gabadhaada arintaasi raalli ma ka tahay maxaad ugu baaqi lahayd dowladda Soomaaliya arrinkaas أنا كم من هاي اللي تطلع كسمع يا إنك استنى شو اللي هاي الأرك كوان أنا ضاف حاول باقي أنا باقي كوان الله يقبل وأقول أقول كذا قول أنا قول كذا وش قول سمع أبيه قول أبيه أنا وقيل عبد الله محمد أحمد أنا وحرير نص سليمان ما أعرف سيك بلا سغاوت ما هاي marka gabadhaada afduub miyaa lagaaga haystaa طول ما هاي دكان دعي حكي ما يورث gabadha adeerkeed inuu dibkan ku dhaco wiilka adeerkiis كيف أقول لها arrintan sababa oo gabadha uu saafaystay أول هاي ugu dhacay خلاص منفى فايك تعالى ما فايك xanuunsan marka Allah ka caafiyo adeer wax kale oo bedel karta ma jirtaa haya hada dawladda maxaa ka codsanaysaa oo gacantaada ku soo Soomaaliyeed هذا واحد هذا المقولة يا شيخ إلا هذا ما بدي بقول واحد تصور هاي أوكي أنا ما تمامها بينت واحد أحد مني خاص كاجا أنا مهين عرف عكلا فكان وبين حاسكي حكم الجيران إن أنت ما مضى حرم والباقينت إسلا دخاليان يحلبان اللي كان إسلا ودخاليان اللي هي جوادة يدوك وين كلا تغير وبين صار لحظة يكون وأرن بين أبوه وبين أبوه أوكي وبين بين بدينه كحلي حلياجا سويكاجا dadkaaga ugu dambeyn dawladda maxaa ugu baaqinaya jamac magaca dadkaaga ku hadlaya jamac waaqayaa xiriirka Soomaaliya maamada dadka ka hor ayay xirnay sida la sheegay ma arintaas wax maxaqiiq baa loo hayaa dilka ka hor maamada xirnay bisa falka markuu dhacay kadib la xiray maamada ayay هذا الحين تبين يعني وحش شيء يعني ما مدري برضه فرق دعاية اللي عرف كهر اللي حري ما يحب بسه عيال مركا هذا الكاس ميديا أو بنت ميديا هذا الهايو وابين لسه صح waxaad leedahay falka intuusan dhicin sitimaan ay xirnay sida la sheegay marka afar maalmood ay xirnay intaas aad xaqiijinaysaa dowladda Soomaaliya madaxweynaha jamhuuriyadda iyo ra'iisul wasaaraha dalka maxaad ka codsan lahayd in gabadhaada arrinteeda maadaama ay walaac badan bulshada ay ku abuurtay madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha maxaa ka codsan lahayd gabadha iyo badbaadiya gacantaadana ku soo celiya maamada xiranne ha ninkii dhintay arrintiisa in dhaqan laga dhaqmo oo laga fariisto qabiilaadka ay ka fariistaan reerka aad ka dhalata diyaari u yihiin هذا ما ستعرف